Experience. We are the industry leader anywhere on the planet. maanta waxaan ku soo qaadan doonaa mowduuc ah doorka ay dhalinyaradu ka qaadan karaan dib u dhiska dalka Soomaaliyeed. dal waliba oo ku yaala dunida guudkeeda waxaa horumar nabadeed gaarsiiya dhalinyarada waddankaasi iska leh. sidoo kale dhalinyaradu waxay door weyn ka qaataan inay waddankaasi qalaaso fara badan ay ka abuuraan. dalka Soomaaliya waxaa soo maray isbedelo aad u qurux badan kuwaas oo horseed u ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed. Axmed Gurey oo ah halgamaagii weynaa wuxuu halganka gobonimo Soomaaliyeed ku soo biiray asagoo 19 jir ah. waxaa sidoo kale xusud mudan in ururkii SYL uu soo halgamay ama soo gaarsiiyay Soomaaliya xornimadii 1960 aanu qaadanay ay ahaayeen dhalinyaro aad u daayar isla markaana lahaa aqoon waayo aragnimo oo diini ah. waxaa sidoo kale xusud mudan in dhalinyaro iyo dad waaweynba ay ka soo qaatay in waddanka Soomaaliya uu qalaasahay burburkaani ku sii jiro. barnaamijkeena maanta waxaa marti iigu ah Cabdifataax Maxamed Aadan Cabditax Midnimo oo ah suxufi ka howlgala mid ka mid ah idaacadaha maxalliga ah ee magaalada Oslo Radio Samadoon. sidoo kale waxaa marti iigu ah wiil dhalinyaro ah isla markaana wadani ah oo lagu magacaabo Sahal Xuseen Ruute. kusoo dhawaada marka hore TV-ga caalamiga ah ee Norsom studiisa koowaad ee magaalada Oslo. aad u mahadsantahay adiga Axmed Taajir ah iyo Abdidoon tina mahadsantiin. sidoo kale oo kusoo dhawaay programka aad mahadsantahay. marka hore aan ku hormaro Cabdifataax, door intee la eg bay dhalinyaradu ka qaadan karaan in waddanka Soomaaliya uu noqdo waddan la jaan qaada wadamada horumaray? bismillahi rahmaani rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah calaa aalihi wasaxbihi wasalam ama bacd. dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad mahadsantihiin Axmed Taajir. runtii wax badan baad tirisay gobonimo doonka ama waddanka Soomaaliya marxaladu soo maray. runtii sanadkan oo dhihi kara maanta marxaladan hadda la joogo yani wax badan baa laga soo gudbay. waxaan aaminsanahay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada in wax badan ay qaban karaan. waxaa kamid ah kow horta inay iyaga isku dubnaadaan. tan labaad haddii qof walba muhiimadda saaro dalkiisa waxqabadkiisa waxa uu qaban karo waxaan aaminsanahay in wax ay qaban karaan. taas ay aaminsanahay waayo waddankan hadda aan joogno oo kale waxaa wax ka dhigay oo meel gaarsiiya waa dhalinyarada waayo. marka waxaan aaminsanahay in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay diyaar u yihiin in dalkooda ay wax badan u qaban karaan. su-aal taa la mid ah haddii aan ku weydiiyo Sahal, door intee leeg bay kula muuqataa in dhalinyaradu ka qayb qaadan karaan dib u dhiska waddanka Soomaaliya oo muddo 21 sano dagaala ay ragaadiyeen? bismillahi raxmaani raxiim. waa su-aal aad iyo aad u wanaag badan. waxaan dhihi lahaa waddan walba wuxuu ku dhisan yahay dhalinyarada sida ognahay. dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabo badan ay waddankooda kusoo kordhin karaan oo haddii ay isu imaadaan ay wax wada qabtaan. laakiin meesha waxaa ugu muhiimsan inay dad marka hore ay yihiin dad wax bartay tacliintooda sareyso. waxaan dhihi karaa waddan walba maanta wuxuu ku dhisan yahay dhalinyaradooda. Soomaaliya maanta waxaa lagu qiyaasaa dadka percenti marka loo qiimeynayo dadka ugu badan waa dhalinyaro. haddana dhibaatadan haystaa waxay tahay qof walba maanta da-da waxaa laga yaabaa inuu waddanka intuu burbursanaayo uu ku dhashay uu kusoo barbaaray. marka waxaana dhihi karnaa xoogaa tacliintooda sareyso. marka waxaan dhihi lahaa in dhalinyaro ahaan haddaan nahay inaan isku maano la sameeyo walkii urur oo dhalinyaro lagu horumari karo tacliintooda way aragnimadooda si ay waddankooda wax u qabsadaan. waana aad iyo aad ay muhiim u tahay in dhalinyarada la dhiso si ay waddankooda horumar iyo wax walba ay u gaarsiiyaan. wuxuu ka dhawaajiyay Sahal in dhalinyarada Soomaalida ay yihiin dadka ugu badan ee dalka Soomaaliya ku nool. marka maxaad is leedahay way hortaagan yihiin inay doorkooda qaataan? wax badan baa hortaagan sababtoo ah Soomaalida waxay dhahaan sadar muddo su'aal ka dheer geel walba sanqadkiisa ayuu leeyahay. markii qofka uu fiiriyo aabihiisa awowgiisa adeerkiisa markuu eego ama abtigiisa markuu eego ayaa waxay noqonaysaa silsilad soo socotay. tusaale ahaan waxyaalaha maanta keliya dhalinyarada hortaagan loo dhihi karo waxaa weeye waa qabyaalada wey. sababtoo ah waxaa laga yaabaa dhalinyarada maanta hadda weli xilligan joogo ayagoo waddankii burbur soo maray haddana ay diyaar u yihiin haddana markay u istaagaan
in la dhaho dadkii kale markaas ay wax u qabanayeen ay dhahaan dhalinyarada waxbay qaban karaan laakiin waa qabiilkee taas wayna ku xawartahay qabyaalad wey marka haddii soomaalida ay maanta ka tegi lahaayeen qabyaalada waxaan aaminsanahay in wadanka dhismihiisa horumar gaari lahaa tacliintan loo dareeri lahaa xataa ganacsigii iyo xataa waxaa soo laaban lahaa hataa haygarkii wadanka ayaa soo laaban lahaa marka maanta waxaa hortaagan waxa waaye waa qabyaalada hortaagan wax waa la baran karaa waxbarasho marka waa la baran jiray wax ka hortaagan maaha laakiin haddii macalinkii uu qaldan yahay oo ardaygii uu qaldan yahay oo waalidkii uu qaldan yahay oo dadka wada qaldan yihiin yaa saxayo dhalinyarada waxaa laga rabaa haddii macnaha maxay ahayd qof uu qaldan yahay qofka inay qaladka laga qabto ayaa wanaagsan in lagu daysta ma wanaagsana marka barnaamijka kulli wuu sii dheeraanayaa ayaan gudaha usii geli doonaa laakiin waxaan aaminsanahay haddii maanta laga gudbi lahaa qabyaalada in maanta dhalinyarada meel ay gaari lahaayeen waayo maanta waa ogtiin wadanka waa burbursan yahay dhinac walbaba haddii la dhaho jidadkii haddii la dhaho dadka abaaraha haysta meesha muqdisho ku nool soomaaliya ku nool usoo noqon doona taas waxyaala badan baa marka anaa maxay wadanka hortaagan laakiin dhalinyarada macnaha waxa ay qaban karaan waxba waayo wuxuu ka dhawaajiyay in qabyaaladu ay tahay caqabada ugu weyn ee dhalinyarada haysta ama la qabtaa wallahi marna waa la qabaa laakiin ra'yi ka gooniya wata ra'yigaa wuxuu yahay maxaa ka hortaagan diliila su-aasha jawaabteeda aniga waxaan dhihi lahaa aniga ra'yigii waxaa ka hortaagan dhalinyarada inaan loo isticmaalay horta marka hore inay wax qaban karaanba meel walbana waxaan aaminsanahay in dad odayaal loo isticmaalo marka culays ugu weyn oo jira xitaa dhalinyarada waxaa loo isticmaalaa in qora loo dhiibo si waxyaabaha qaar ugu fuliyaan maanta hadii la fiiriyo maanta dhalinyaro wadanka waxba kama ahan runtii waxaa waaye waxaa laga yaabaa in qore loo wada dhiibo oo nin walba markaas iyaga la iskorgiyo iyaga isku laayaan marka taas aan dhihi karaa waxaa waaye dadka soomaaliyeed weliba aan odayaasheena aan dhihi karaa dhalinyarada maanta iyaga u baahan inay wadankii wax ka qabtaan iyaga u baahan maanta inay wadankoodii dhis ku sameeyaan marka intii loo isticmaali lahaa hub ha qaadaan amba has baabiyaan oo ha iga haslayaan waxaan dhihi karaa maanta in la sameeyo sida hore u sheegaba guddi dhalinyaradaas abaabula tacliimtooda waxbarashadooda ka shaqeeya caqabada hortaaganna waa taasaan dhihi karaa aniga maadaama hay okay macnaha wuxuu odayaashu ka dhawaajiyey ani waxaan aaminsanahay dhalinyarada soomaaliyeed maanta hadday isku tagaan inay wax qaban karaan sadaad ku sheego horena u sheega waxaan dhahay odayaasha anaga kama boodeyno waa waalidkeen waa odayaasheen waa abtiyaasheen waa adeeradeen weliba waxaa laga yaabaa inaan macnaa markaas haddaan dhalinyaradan hadii hataa gabdha ka gursaa dhici karto marka odayaasha keliya adeer ma saari karo macnaha runti meesha waxaa waaye odayga hadduu qaldan yahay maxaa macnaha maxay ahayd sahal oo kale ama anigoo kale ama dadka kale maxay u qaban u dhiwaayeen adeer waa qaldan tahay wadaan nagu wadid macnaha aan ka leexano halkaas bahri waxbaa yaale waa wadadaas banaan dhinacaas kale ma marno maxaa u diiday markaad isleedahay waxaa u diiday dee waa laba mid waaye interest oo runta jiro oo interest la dhihi karo maanta waad ogtahay soomaaliya marxalad badan bay soo martay kow labaatan sano dallaabayaal baan ahayn kow labaatankaas sano aniga wadanka waa lahayn laakiin maya macnaha waxaan ka wadaa waxaan ka wadaa aniga wadanka waxay u dambeysay 92 udus oo yar marka Ethiopia soo qaxay weligeed isma dhayn Yurub baad aadaysaa isma lahayn haddana marka Ethiopia joogay mar walba waxaan niyadeeda ku hayay inay maalin Soomaaliya noqon doonto laakiin ma aysan dhicin welina waa ku haysaa welina niyad waa ku haya waana weligii maamula jabeerayo waxaan aaminsanahay mar uun aniga aan joogin in ilmahayga ay nabadaas ay dhinaca ka qayb qaadan doonaan ayaan aaminsanahay ahay dal weliba waxaa doorka sargaarsi waa dhalinyarada si aad ka dhawaajiseen labadiinaba marka haddii wadanka Soomaaliya laga soo wada tegay oo Yurub la yimaado oo qof walba yiraahdo wadanka Soomaaliya markuu nabad noqdo baan ku noqonay ama wadankayga waan jeclaa jacaylka wadanka u qabto muxuu noqon karaa axmed horta waa su-aal meesha ku taalo madaxweynaha keliya wax ma qaban karo ra-iisul baarlamaan waxaa keliis ma qaban karo ciidan dowladda oo meel inta ilaalinayaan oo qof waxadaya soo raadinaya keliya wax ma qaban karaan laakiin waa shacabka inay u diyaar garoobaan oo diyaar u noqdaan in maanta ay garab istaagaan dowlad kasta oo timaada Soomaaliya waliba dowladda hadda jirto dowlad aqoonsada ah haddii shacabka garab istaagaan waxaan aaminsanahay inta macnaha maxay deen xabka ku jirto deen xabka ku dhex shacabkooda inta ku dhex jirta ee tuuga ah ama inta ku dhex jirta qaldama arkino in wax loo sheegi karo ayaan aaminsanahay waayo haddii maanta kuwaas aan la qabanin weli waxaa lagu jirayaa dagaalkii iyo foodii ayaa lagu jirayaa marka waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed hadday inta isku yimaadaan oo sidii ururka hadda ka dhawaajinaysa Israel oo kale
ama sida axmed guud oo kale fikradii dadkaas ay haysteen oo kalete haddii maanta ay ku dabaqaan oo ay ka tagaan qabyaalada waxaan aaminsanahay in wax badan ay qabanaya inkastoo wax badan ay hor joogto haddii haddaa qabyaalada ka tagta waxaa imaanayso wadankii maanta ceel uma qodno cidna uma maqna dhismihii wadanka imaanaya waxyaala badan baa imaanaya. Okay, su-aal taa lamid ah adigaan ku weydiinaya haddii dhalinta wadankaan ka maqan ay yidhahdaan wadankayga waan jeclahay hadduu nabad noqdana waan doonaya u noqdo ay yidhaahdaan jacaylka wadanka qofkaas uu qabi kara intuu leegyahay hadduusan rabinba inuu ka qayb qaato dhalinta nabadda wadanka Soomaaliya gudaheeda ka socda. wallahi horta waxaa xaqiiq ah wadankan anaga waa nimid waana ku noolaa inkastoo aanan lahayn anaga wadanka meel baan leenahay ka wada nimid waana ku noqon doonaa wadankii Soomaaliya dadku sidiisa horta isku mid maaha qofna waxaa waaye wadankii isagoo yaroo ka yimid waa uun maqlaa inuu Soomaaliya jirto marka dadka dhalinyarada xoogaa iyagoo aqliga wadanka yimid maanta waxaan dhihi karaa 100% inay ka wadin jecel yihiin dadka iyagoo yar halkan la keenay marka qof walba maanta Soomaaliya ah oo halkan ku nool uu jecel yahay wadankiisa inuu dib ugu noqdo waxna uu ka sameeyo ama waxbarasho ha gaarsiiyo dad kaleeto amba waxyaabo kaleeto markaas uu sidoo halkan ka faa'iido gaarsiiyo laakiin waa muhiim in wadanka la jeclaada oo waxa waaye horumarkiisa aad qof walba uu ka shaqeeyaa aniga shakhsi ahaan wadanka waxa waaye anigoo aqli ah aan halkan nimid maanta wadankii maanta waxaa laga yaabaa si aan u jeclahay qofka halkan ku koray inuu isku dayo laakiin waxay ku xiran tahay waalidka oo markaa awlaad halkan joogta dhalay siduu markaa wadankii ugu sheekeeyo iyo siduu markaa u dareensiiyo qof Soomaaliyeed u yahay. weliba waalidka wuu ka qayb qaadan karaa dhismaha wadanka Soomaaliya haddii waalidiinta ay uga sheekeeyaan jacaylka wadanka Soomaaliya iyo xiisiyuhu lahaa iyo siduu ahaan jiray uga sheekeeyaan waayo ayagaa soo arkay nabad ayaga ayaa kusoo dhex jiray foodada sababtoo ah markii nabadeedna way joogeen maanta oo ku 20 sano oo dhibaato ay ugu jiraan way joogeen marka ayagaa uga sheekeyn kara waalidiinta qalday ma ahan dadkaada dagaalada burburka dib guursa kama wado waxaa dadkii soo guursaday burburkii ka hor oo haddana wadankii siduu ahaa nabadda ka warhaqaya waxaa laga yaabaa ilmaha qaar maanta inay ku weydiiyaan dhahaan dalkan aan joogno ma dalkeeniba inay ku weydiiyaan laakiin waxaa masala waalidiinta haddii maanta meesha uga sheekeynayaan maxay ahayd juxa ay uga sheekeynayaan iyo maxay ahayd waxaa wanaagsan baa leedahay in waqtiga horumar wadanka ay uga sheekeeyaan hadday uga sheekeyn lahaayeen yani qof walba markaas wuxuu noqon lahaa qof aan wadankiisa jecel diyaar u ah in maanta ana maxay dhiiggiisa iyo ana xibaalkiisa u horo. Okay, waa tala fiican xaqiiqdii waxaan doonayaa inaan dib u noqdo marka aan dib u noqdo xisbigii Somali Youth League SYL oo dhalinyaro fara badan oo xilligan nool ay sawir u yihiin in ay ku daysadaan dhalintaasi hore horumarka wadanka Soomaaliya soo gaarsiiyay dhalinyaradaas waxaa xusud mudan in ay ahaayeen dhalinyaro aad u da'yar xaqiiqdii dadku waxay yidhahdaan aqoon ma lahayn aqoon aad u yar bay yidhahdaan laakiin markaad eegid waxay lahayn aqoon diini ah waa mid ugu wanaagsan sila lahaado ka waran dhalinyaradii waqtigaa noolaa SYL dabcan haddaadan goobjoog ahayn buugaagtii taariikhda bay ku qoranta SYL markaad fiirisid dhalinyarada maadaama ay dhalinyaro aad u da'yar aysan haysan xitaa aaladaha casriga ah aan maanta aniga aan isticmaalayno aysan haysan oo laga yaabo haddii ay doonayaan in ay mabda-ooda gaarsiiyaan magaalo kamid wadanka Soomaaliya ay isticmaali jireen ama lugeyn jireen ama waqti dheer ay ku qaadan jirtay inay fariinta gaarto maanta oo adduunka aad og tahay in hal daqiiqo wax ka yar aad meeshaad ku gaarsiin kartid maxaad is leedahay marka dhalinyarada xilligan nool way buuxin la'yihiin kaalintii SYL wadanka Soomaaliya soo buuxisay aniga laba arrimood ay noqonaysaa dadka waagaas horta waxay ku noolaayeen waaqica maanta jira waaqic ka duwan dadka waagaas jooga waxay ahaayeen dad yacni la dagaalamaya hal dad amaba dad group ah la arkayo tusaale ahaan gumaysiga in dalka laga saaro okay waa isku tegay sidee ku saarnaa guddi dhalinyaro ayaa isku tegay dadka isku tegeen way ka wada hadleen waxay diyaar noqdeen dhib kasta ay ku qaadatay geedkaan mid dheer bay inay u koraan tiin way ku guulaysteen oo maanta markii xornimada la qaadanay waa waxay ay soo dhiciyeen waay laakiin hadda waa ka duwanta waxay u duwanta waxaa waaye Soomaaliya maanta waxay soo martay marxalad badan anaa maxay ahayd haddii ahaan lahayd anaa maxay diin lagu dagaalamo oo urar kala duwan lasoo maray haddii lasoo maray maxay ahayd tii qabyaaladii lasoo maray oo la isku laayay haddii ahaan lahayd anaa maxay ahayd in la dhaho gobolkaas maahan gobolkaan kala ka fiican la dhaho dadkii in la kala sooca hataa
hadda marxaladii labaatan kuya tagsan lagu jiray laakiin hadda anaa maxay ahayd sheekada hamil isku soo biishootay waa isfahanay dhibkii macnaha qofkii wadan waa aragnay meesha dhibka imaadan waan la soconay hadda waa la isfahmaye sidee nabad ku qaadanaa waayo marka waxay keenaysaa in muriga difaacaas lagu wada jiro haddii laakiin waxaa dhan laga soo gudbo oo miiska hadalada la yimaado oo qof walba u dhaho aniga waxaan aaminsanahay in waddankaas wax u qabto dhulkaygaan dhisto dadkayga wax taro hadduu dhaho qof walba maanta tv maqan firiista qof walba wala celinaya laakiin waxaan ay maqan ficilkaan ay maqan in wixii lagu dhaqaaqo sahal hadda adiga kuusoo noqdo astaxwada maqlaysi yani waqtigii hore ee s y l oo dhalinyarada anaga agkeena oo kalema naga siiray ahaayeen heshiisna dhigtay qabyaaladan xaqiiqadii aada uga fogaa inkastoo jirtay weliba saameyntii qabyaalada xilligaasi aysan ahayn soomaali markaa inay qabyaalad ka maqneed haddana waxaa jiray gumaysi la dagaalamayay hadda markaad eegtid waddanka soomaaliya dagaalo kala duwan oo magacyo kala duwan aan mabda iyo ujeedo gaar ahayn baa ka dhaca marka dhalinyarada xilligan nool maxaa diiday inay sawir ka qaataan dhalinyaradaasi si ay taariikh dambe u xusto والله سؤال في عوائل runtii horta dhalinyarada saan hore u sheegay waxa weeyaan waxyaaba badan culeysad badan haysta oo ay u gaari kareen halkaas sidoo ninkan saaxiibkii aftaax ugu dhawaajiyo maanta waxaa jira waxyaaba badan oo waddankii soo maray 22 sano kadib waxaa laga yaabaa dhalinyarada maanta jirto inay da-daas jiraanba qaarkood dowladda wax la yirahaysan garan marka hore iska badaa inay walkii ku fikiraan inay waddankooda mar gaarsiiyaan midda kale oo ay jirtaa waxay tahay dhalinyarada inaan si hore ugu sheega baan loo ogoleen inay heerkaas ay gaaraan dad wax qaban kara cashaan ay noqdaan oo xilba horta looma saarinba haddii ay isku dayaan culays kaloo jiraa wuxuu yahay in dadka naga waaweyn oo isku daya inay siyaasad iyo waxyaaba ay qabtaan amba horumar waddanka gaarsiiyaan waxaa jira weli waxaa ku dambeeya xoogaa culeyskii iyo dhibaatadii qabyaalada sababta marka nin shaksi ah isku dayo inuu qof wax qabto isagoo ay ka tahay inuu waddankiisa wax u qabto waxaa laga yaabaa nin kale inuu dhinaciisa ka hadlo yiri ninkan reer hebel wax u badanaya reer hebel wax siinaya taasna waa dhibaato jirta iyada soomaaliya waxaa la yidhahdaa 50% inta ka badan wax dhalinyarada maadaama ay aada ugu tira badan yihiin waddanka soomaaliya yay ka sugayaan in maaragtay mas-uuliyadda ay saarto iyaga waxaa ka dhawaatay in aan mas-uuliyad loo saarinba inay maaragtay ka shaqeeyaan nabadgelyadaas wallahi horta waxay ka sugayaan muhiimadda waxay tahay in horta dhalinyarada aqoontooda iyo tayadooda waxaa waaye in la diyaariyo u baahanta marka hore marka taas la helo dad waxay noqon karaan horu socdo wax qaban kara laakiin maanta jaaniska ugu fiicneed aan dhihi karaa maanta dhalinyarada way haystaan sababta maanta dowladdeeni waa la ictiraafay waa dowlad waxaa waaye waa dadka inta badan wax siyaasadda ka hadla waxay saadaleen dowladda inay noqoto dowlad markaan horu socdo marka jaaniskan hadda jiro waxaa waaye waa jaanis aad iyo aad u muhiimsan oo dhalinyarada ay u baahan tahay maanta inay ka faa'iidaysato special waxaan maanta dhihi lahaa dhalinyarada ku nool qurbaha waxaan dhihi karaa waa way ka jaanisad badan yihiin kuwa waddanka ku nool sababta waxbarashadoodii iyo waxyaabo badan iyo fursado badan ay ka haystaan kuwa xagga waddanka ku nool marka kuwa halkan jooga waxaa looga baahan yahay inay sameeyaan ururo iyo waxyaabo badan ee dhalinyarada ay ku midayn karaan kuwa waddanka jooga iyo kuwa banaanka jooga iyo balkii meel wada fadhiistaan ee waa tashi wada galaan si markaas waddankii iyo markaas ay u noqdo waddan dhalinyaradooda ay waxaa waaye dib soo kacda wax qabsan kara dhalinyarada marka wax baratay ee qurbaha ku nool dhalinyaro aada u fara badan oo aqoon heerar kala duwan gaari baa ku jiro soomaaliyeed weliba is leedahay marka waqtigoodii baa la jooga maadaama waddanka soomaaliya hadda ka muuqata ifaalan nabadeed dowladda soomaaliya la aqoonsaday marka mis leedahay way habooneed in ay dalka dib ugu noqdaan waa kelmada isku jirto haddaan ku dari rabay inta badan waxaa lagu ceelshaa dadka qurbaha jooga waxbay barteen waa soo laabteen waddankii gudaha nabad ma taalo nabad ma jirto tusaale ahaan soomaaliya muqdisho keliya ma aha macnaha muqdisho agaarkeeda ma aha soomaaliya waa weyn tahay saa ognahay ilaaraska bugaas asir wey macnaha aad dalku weyn dal waxaan haysanay macnaha maxeed oo dhinac walba barwaaqa ka ah laakiin dhibka jiro waxaa waaye dad waxaa jira macnaha maxeed fowdada diyaar u ah in macnaha maxeysaan lagu jiro dadkaasi qof kala jida aniga aad waxaan saarahayaa 2 gurub ayaa aad saarayaa yaraan noqo in soomaaliya horumar maanta ay garto waa ganacsatayaasha iyo suxufiyiinta dibadda joogto mediaha maxaad ku sababeynaysaa waxaan ku sababeynaya waxaa waaye soomaaliya waagii nabadda ahayd waxaa jiri jirtay in canshuur laga jaro
dadka ganacsatayaasha ah markii wax dhoofinaya ay markay soo dejinayaanba laakiin hadda waxay diyaar noqdeen maadaama 20 sano foodo lagu jiray lagama caashay la ogaaday waxa ay tahay canshuur waxa la ogaaday ayaa qof walba wuxuu rabaa in sidaan ay sii ahaato ganacsatayaasha isfahan faa'iida macnaha sida hadda lagu jiro ay kasii macaashaan okay waana eedaan saaraya waa aniga talabaad suxufiyiinta dibadda joogan eedaan saaraya meediyaha sababtoo ah markuu macnaha maxay war ka dhaco kaleeto masalan ka dhaco kaleeto marka ka dhaco kaleeto ma ahan wariyaha jooga macnaha joohar jooga inuu qora ma aha muxuu usoo qoraa kan marka joogo maxaa wax loo soo wada qori waayo yani ana waxaan aaminsanahay soomaaliya haddii maanta macnaha maxay waaqica dhabta loo dhaadhaco nabad way ka dhacaysaa nabad waa haysanaa tan maantaysa ilaaha noo barakeeyo dadka dibadda joogo hal tal ayaan siinaya talaan siinaya waxaa waaye waddan walbaba sida maanta waa celinahay dhalinyaro ayaa dalka dhiso inaan banaanka joogan dhaana ma ahan waddankii nabad ma ahan dhaana ma ahan waa inaan laabanaa annagoo isku duban ana waxaan aaminsanahay haddii qurba joogta dibadda jooga hadday isku tagaan inta ay baxaan sidii macnaa maxay mahatma gandhi oo kale ay sameeyaan ay magaalo kasta ay yani iyagoo raxan ay tagaan waxaan aaminsanahay nabad ay dhacayso xitaa ciidamadan joogo hataa oo dadka qaar ay dhahayaan waxay ku maadaan qalab dad qaar ay dhahayaan waxay ku maadaan sharciga qaranadooda dhahay markino hataa way iska bixi lahaayeen taas ayaan aaminsanahay laakiin yaa u bareerayo arrintan diyaar u aha waayo taasoo mushaashtaa waa mahadsan tahay dalka soomaaliya haddaan usoo noqdo burburkii muddo 21 sano ka badan uu burbur ku jiray dagaalo sokeeye heerar kala duwanna uu soo maray heer qabiil la isku diro markaad eegtid markaa heerka uu qabiilku soo gaaray waxaa jiray in dhalinyaro yar aada u da-yaryar oo maxaa la yidhaahdaa ummaddan soomaaliyana horseed u noqon lahaa ay dagaaladii ka qayb qaateen oo qorya loo dhiibay oo aada u daayar 15 waxyaaba lamid ah ilaa haddana ay weliba socoto dhalinyaradaasi kii dhaawac noqdo maxaa waaye weerarkiisa daweysanaya oo qabiilkii ugu dagaalamaya ma daweynayaan iyo groupkii kaleba kii dhintana wuxuu ka dhintay qoyskiisa familka ma dhiman qabiilka muusa ka dhiman qoyska buu ka dhintay marka maadaama muddo 21 sano ah ay dhalinyarada arkayeen magacyo badana loo bixiyo maliibaanaasha lagu liibaanaan la yidhi maxaa weli ay ugu sii taagan yihiin oo dhalinyarada ay u noqdeen maliibaanaasha lagu liibaan wallahi waxyaaba badan inay horta sababaya midda ugu horeysa horta waxaa laga yaabaa inay tahay xag dhaqaale oo sidaa ninkaa meesha dhaqaalaha kelisa u qaatay qori iyo waxaa laga yaabaa sababta waxaa kaloo keeni karaa in cunugan dhalinyarada maanta ah waxaa laga yaabaa in waalidkiisa iyo amba dhinteen amba uu meelaha kale baadiyaha uu ka yimid oo sidaa uu kusoo galay magaaladii marka wuxuu ku khasbaya maanta inuu meel dhaqaale ka helo inuu raadiyo walaas u weyn oo sababi kara inuu ninkan weli isagoo xanuunka uu leeyahay inuu haddana qora sii qaadayo waxay tahay waxaa laga yaabaa inuu maanta uu helayo dhaqaalo iyo nolol maalmeedkiisa sababto ah ma jirto maanta dowlad dhexe oo wadankii gacanta ku haysa oo caruurtan damaano qaadaysa noloshiisa iyo wuxuu ku noolaan lahaa taasa u sababa marka culeyska jira waxay tahay taas marka dhibaatada ugu ba-an marka waxay tahay waa dadka adeegsanaya dhalinyarada oo ujeeda cunug yaro maanta maskiin ah haddana laga yaaba inuu qabo yahay qoray u dhiibay oo yidhi ninkaan marka meel uu wado iyo qofku dilaya ma garanayo marka qofkii la soo dili lahaa uu dilaya ma sababta waxa u jirta maalmeedkiisa taasaa marka weli sababaysa inay sii hayaan qorigii iyo dhibaatada wuxuu ka dhawaajiyey خضر وحير runtii sahal waxba ma ka dhawaajiyey ana waxaan ku dari lahaa waxa weeye kii hooyad afar xubno dhasho kale oo afartii ilmood maanta xilligan la joogo yani haddii hal qof cunugeeda uu 8 sano jiro yani meel u tegi kara ma aha inuu iska noqo baalashay iska noqo oo meelaha u taga ma ahan laakiin waxaa la rabaa dhalinyaradaasoo kale in dowladda ay u furto weliba dowladda maanta aan haysano kuwa baalashlaha intiisa qori qadan waa in dowladda macnaha maxayd ay maanta ay laba arrimood xoog saartaa kow waxbarashada dadka in macnaha maxayd la dhaqan celiyo waayo 20 sano ayaa burbur ku jireen dowlad maysa arkin marka 20 sano waxaa looga bixi karaa waxaa waaye in dhalinyaradan iskuul macnaha maxayd tacliina loo furo talabaadna in macnaha maxayd kala dambe ku intifaaco laakiin jiil ka dambeeya buu u abuuraa marka dhalinyarada hadda taagan xilligan joogta soo looga baahna in ay ka faa'iidaystaan ifaalaha quruxda badan ee waddankeena Soomaaliya
ka dhacaya xilligan oo ay doorkooda wanaagsan ay ka qaataan. waa arrin aad u wanaag badan oo waxa weeyaan dhalinyarada maanta jaanis aad iyo aad u fiican haystaan oo waddankooda maanta wax ugu qaban karaan. muhiimadda waxay tahay in waxa waaye waxaa la gacan wada jir wax ugu goyaan. dhalinyarada kulli maanta waxaa aaminsanahay in wax qabiil yidhahdo horta iyaga isuma jecla iskuna raadsadaan. waxaan aaminsanahay maanta inuu sii dhammaanayo magaca qabiilka. marka inay isku raadsadaan wadani jecel iyo waddankooda iyo meel isu wada imaadaan ay ka wada hadlaan balse wax uu waddankiina wax ugu qabanaa inay mar wada fadhiistaan meesha si allaale si ay arrintaas ay ku heli karaan in la wada fadhiisto oo arrintaas laga wada hadlo oo waddankeena san wax u qaban karnaa laga wada hadlo kadibna markaas tilaabo la qaado qof walba markaa dadku bini-aadamka waxaa waaye isku maskax maha oo ilaah baa kala duwan waxaa waaye qofba wuxuu jecel yahay qof markuu fikirka lagala qaato qof walba wuxuu yaqaano aqoontuu leeyahay oo markaas soo bandhigo oo markaa dhalinyarada maanta iyo waxaa waaye dib u dhiska waddanka nabadgelyada nadaafadda waxyaaba walba wax walba ay ka shaqeyn karaan amisana maanta